kulankan oo ay soo qaban qaabisay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya loogana hadlayay arrimaha habraaca marxaladda kala guurka ee road map-ka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiin ka socota dawladda ku meel gaarka Soomaaliya, ahlu sunna iyo qaramada midoobay ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii ka suura galay arrimaha habraaca marxaladda kala guurka ee road map-ka. kulanka markii uu soo dhamaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. waxa uuna sheegay in ujeedka kulanku uu ahaa mid looga hadlayay habraaca marxaladda kala guurka ee arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii ka dhaqan galay tan iyo markii la saxiixay arrimaha habraaca marxaladda kala guurka ee road map-ka. kulankan waxaa soo qaban qaabiyay dawladda wuxuu ku saabsanaana in la isla eego annaga iyo international community inaan isla eegno road map-kii waxaan ku soo heshiinay September 6-deedii 11 ama sanadkii hore taa road map-kii lagu soo heshiiyey 4 qodob oo ahayd nabadeynta waddanka, dastuurka la dhammaystiro, waddanka oo mataqaanaa dawladda loo sameeyo habsami wanaag ama good governance. wasiirka qorsheynta Cabdullaahi Goodax Barre Fiidow oo isna la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in wax badan ay ka dhaqan galeen arrimaha habraaca marxaladda kala guurka ee road map-ka, haddana ay rajaynayaan inta dhiman inay dhammaystiraan. sidoo kale gudoomiyaha gobolada dhexe ee culimaadudiinka ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Maxamuud oo ka soo qayb galay shirka ayaa waxa uu sheegay in culimaadudiinka ahlu sunna wal jamaaca ay qayb weyn ku leeyihiin dhaqangelinta arrimaha road map-ka. waad ogtihiin ahlu sunna wal jamaaca waxay ka mid tahay saxiixayaasha road map-ka bilow ilaa iyo hadda uu marahayo meesha, marka doorka ugu weyn bay ku leedahay. waxaana ka gaari doonaa insha Allah meesha ugu dambeysana waxaan jecelnahay si loo gaaro horumar iyo midnimo iyo nabadgelyo ummadana ay u hesho sharci anfaco ayaan waa gabagabahana inaan joogno aad baan u jecel. qorshaha marxaladda habraaca kala guurka ayaa waxa uu ahaa mid ay saxiixeen mas'uuliyiinta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya, kaasi oo hadda dawladdu ay ku howlan tahay dhaqangelintiisa.